cuqaasha odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan degmada Qurulugud ee ka tirsan gobolka Buuhoodle ayaa uga mahad celiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi magacaabista wasiirka cusub ee wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Ali Xasan Maxamed Cali Mareexaan waxayna sheegeen in wasiir Cali Mareexaan yahay shakhsi ku suntan waxqabad ballaaran oo ka qabtay dalka waqtigii uu xilalka kala duwan ka hayay ugu horeynba gudoomiyaha xisbiga kulmiye degmada Qurulugud Aadan Maxamed Yuusuf Aadan Rangis gudoomiyaha degmada Qurulugud odayaal iyo waxgaradkan ayaa u hambalyeeyay isla markaana taageero u muujiyay wasiirka cusub ee wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Cali Mareexaan waxaanay ka marag iyo markhaati kaceen waxqabadkii uu ka qabtay degmooyinka Qurulugud Wadaamago iyo deegaanada hoos yimaada labadaasi degmo isla markaana ay la garab taagan yihiin taageero buuxda waxayna ku sifeeyeen shakhsi ku habboon mas'uuliyadda uu madaxweynuhu u igmaday isla markaana uu yahay wasiir qaran waxaana ka mid ah hadaladoodii waxaanu hambalyada u diranaa wasiirka cusub ee uu magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Ali Xasan Maxamed Cali Mareexaan baanu hambalyeynaa waxaan leenahay hambalyo ilaahay xilka lagu magacaabay cusub waxaanu ilaahay kaaga baryaynaa in ilaahay kugu garab galo kugu asturo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ee xilka gartay ee uu igmaday inuu wasiirka uu igmadana waxaanu leenahay adigana madaxweyne waa kaaga mahad celinaynaa aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa wasiirkaas waa wasiir la mahdiyay hore markuu xildhibaanka u ahaa ee baarlamaanka ahaana baarlamaanka 82 xubnood uu ka sheeganaa markii uu wasiirka ahaana wasiirada ugu tunka weyn dawladii Axmed Silaanye ayuu kamid ahaa waxaan leenahay waa wasiir ku habboon xilka loo magacaabay iyo mid ka sii qaalisanba waxaan leenahay hambalyo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waanu kaaga mahad celinaynaa madaxweyne aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa waxaanu leenahay waa wasiirka magacaabistiisa waad asiibtay aad iyo aad baad u asiibtay markaad wasiirka magacawday waxaan leenahay tala kuma seegin waxgaradkii iyo odayaashii iyo culimadii iyo ganacsatadii iyo xildhibaanadii ayaa maaragtay halkan fadhiya aanu u hambalyeeyno oo u mahadnaqno madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland isku shaandhaynta uu sameeyay inaan u mahadnaqno marka hore madaxweynaha marxigtada waxaanu aad iyo aad ugu hambalyeynaa oo ugu sii mahadnaqnaa wasiirka Ali Xasan Maxamed Cali Mareexaan oo maaragtay gobolada bariga ka soo jeeda wasiirka waxa weeye waxqabadkiisii horena waa la ogaa dawladii Axmed Silaanye markuu ahaa maantana waxaa laga rajeynayaa waxqabad aad u ballaaran anigoo ah Sheekh Usmaan Maxamed Diiriye Sheekh beledkii degmada waxaan u hambalyeynaa Ali Xasan Maxamed Cali Mareexaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waxqabadka iyo markaa maaragtay kartida hore ee la soo sheegay aan la qabaa intii hore ay sheegtay baan la qabaa maantana aad iyo aad waxaan uga rajeynaynaa ti iyo mid ka sii fiican baan aad uga rajeynaynaa markii uu baarlamaanka ahaa iyo markii uu wasiirka ahaa Ali Xasan Maxamed waxbuu qaban jiray isagoo aan hayn xilba oo ganacsato ah ayuu waxqabad ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer markii uu ahaa buu waxqabad ahaa markii uu xildhibaanka noqday golaha baarlamaanka soo baxay buu waxqabad ahaa markii wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta noqday buu waxqabad ahaa iminka uu odaygii beesha noqday buu waxqabad ahaa madaxweyne waxaanu kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee aad noogu magacawday isku hufkii iyo kala haadintii wasiir Cali Mareexaan haddaan nahay degmada Qurulugud waxaan leenahay waa ku hambalyeynaa waana ku ducaynaynaa aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa wasiirka Cali waxaanu ugu ducaynaynaa ilaahay xilka inuu ku asturo ayaanu Cali ugu ducaynaynaa waana ku taageeraynaa waana ku gacan qabanaynaa waxaanu ka sugaynaa waxqabadkii hore loogaga bartay ayaanu maantana insha Allah ka sugaynaa waxaanu gaar ahaan u sii hambalyeynaa wasiirka uu magacaabay beelaha bariga burca bariga ka xiga uu magacaabay iyagoo aanay wada dhamayn oo aanay intoodii ahayn taasaanu maaragtay Ali Xasan Maxamed oo maaragtay la wada garanayo cidna aan maanta loo sheegaynin barigeeda iyo galbeedkeeda Somaliland aan loo sheegaynin
kaanu hambalyaynaynaa ee aanu u ducaynayna ee aanu leenahay ilaahay xilkaa kugu asturo dembigaagana allah ha dhaafo aan aad iyo aad u soo dhawaynaynaa oo aan ugu hambalyaynaynaa cali mareexaan cidi maanta ma sheegayso waa nin la ogaa waxqabadkiisa waa nin sharabnaa markuu ahaa baarlamaanka iyo markuu wasiirkii ahaa dowladdii Silaanyo maantana waxa u sii korodhay maskax iyo waayeelnimo wuxuu yahay waa la yaqaan wuxuu gudo waa la yaqaan cali mareexaan nin maanta la baranayo maaha waa nin ilaahay nin walba isaga maskaxdiisa iyo mowqifkiisa ilaahay baa kor u qaada horaa aad arrinkaagu meel dheer u saaraa maantana waanu kuu sii mahad celinaynaa waxa aanu taageero mug iyo miisaan loo muujinaynaa magacaabista loo madaxweynuhu ugu magacaabay wasiirka biyaha cali mareexaan aad iyo aad baanu arrintaa uga mahad celinaynaa wasiirada la magacaabayna waxaanu leenahay ilaahay xilka ha idin fududeeyo gaar ahaan wasiirada deegaankooda waxqabadkoodu deegaankan yaallo sida ballaaran u yaallo caliyo waxqabadkaagii degmadan iyo gobolkan waxa uu yaallaa si aan la arag oo la maqal waxaa tahay wasiir shiraban oo arrimihiisu cad yihiin ayaa la iga faroole telefishinka sahan degmada Qurlugud Buuhoodle